السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتين صاحبتي مي في عنتهين فيديو عدكيس waa iga halaabay marka waxaan sameeyay inaan ku soo kordhuubay inay noqotay raaliga ahaada marka sheekada saas u socotaa ila socda hadii oonan dhaqdhaqaaqayga iyo codkayga u soconin سيتين صاحبتي مي في عنتهين maxaa haysiin warka soo deeya aniga adduunyada bursano iskoolka waana loo xiray maxaa la dhahaa sheekada maanta rabnaa niga sheekeeyo dhinacaas iyo Canada ka dhacday laakiin qofka sheekada ku dhacay dadka sheekada ku dhacday waxa waaye dad Afghanistan ah oo meesha tagay sida caadada ahayd waa idin weydiisanayaa igalaali ahaada maxishoota la dhahaa subscribe ka daawari isaalin subscribe ki isaar adoo aad u mahadsan hatta hore nolol joogteen jazaakallahu khayr sheekadan ku sii soconayna ninkan waxa la dhahaa Maxamed Shafiici la dhahaa wuxuu ka yimid Afghanistan originalkiis Afghanistan oo ka yimid laakiin se wuxuu aaday Dubai oo ka shaqeystay lacag badan oo ku shaqeystay Australia oo tagay lacag badan oo ka shaqeystay Ilaahay wajiga u furay marka nin wuxuu noqday oo milyaneer ah lacag xoog leh uu helay gaariga uu adduunka kala gadi jiray marka Rabbi subhanahu wa ta'ala lacag ugu naxariistay ninkan tanaagu qabi jiray naagta hore uu qabay xaaskiisii koobaad waxba ma inuu dhalin Rona la dhahaa magaceeda mid labaad oo guursaday tii labaad waxay u dhashay 7 caruur ay u dhashay marka wiilal gabdhay wada dhashay marka waxa dhacday wuxuu wax soo baxay program soo baxay oo Canada hadii ay lacag leedahay milyan tahay ay imaan karto wuxuu sameeyay marka programkii oo apply gariya soo Dubai joogo programkii loo soo ogolaaday Canada ku shubay 7 caruur iyo asiga iyo xaaskiisa caruurta dhashay عبار مركي بس جوجين بلوين مش جوجين وحوقتي مش بكون تجايب العق حوق له ديبتي إنه العق تحسته شيء بنجي وجرته جوريو وحوك بحثي إن أو فملك الدجايان إن وحوك بحثي لو بقول كون الكيس إنه رستو وكبعد جورو كديجو لو بس بقول كون تسكو بحيي إياه 11 مليون وحوقتي مال بزنس وكو يبتدي نينك وحوقها نين إلهي أفري نمعديسة لكن بروبلم كوين ومحمد خوي مشان وحواي إن reerkiisu aad برشر ku hay gabdhihiisa oo برشر badan ku hay adisaas uu ahaa wuxuu xaajidiisa isku fiicnaayeen wax kasta isla ogaayeen way raali iskaga ahayn wax xalaal wuxuu sameeyay la gabdhihiisa raali ma ka ahayn waxay sameeyaan because gabdhaha waxay noqdeen gabdho oo nolosha adduunka European in la qabsadaan rabaan marka waxa la sameeyay markii aniga cabaar joogeen dana waxay waceen in imaato naagtii hore uu qabay oo caruurta aan dhalin Rona naagta la dhahayo uu keenay marka naagta markuu meesha keenay tii ka horeysay uu qabay oo guriga joogto caruurta dhashay baa naagta markastaba waxay tiraahdaa shaqaala gurigan ka tahay bishii waxa la siiyaa hal konton oo dollar oo Canadian la siiyaa bishii oo dhan telefoon guriga xataa ma isticmaali karto hadii ay dadkeeda rabto wacato waxay ka wacaysaa banaankii tagaysaa ka soo wacanay saasi loo ahaa waxa dhacday marka in gabadhii dhibaatadaas ku jirtay oo ninkan 4 saac uu garaaci jiray xataa ilmaha way ka xirin jireen aaba maxaa u dilaysaa eedo maxaa kartaa iska daayay dhigi jiray ciyaalka marka naagta oo naagta ciyaarta dhashan ida meesha ka bixi gaariga wadataa ilmaha iskool ku geysaa ilmaha ka soo celisaa wax kasta waa loo ogol yahay ninkeeda iyada raali iskaga yihiin nolosha ilmaana waa la idbinayaa naagta oo la keeno cusubne oo ilmaha iyada ka horeysane waa la idbinayaa adoonsi lagu hayaa guriga nadiifinaysa shaqooyin guriga qabanaysa kontonna waa la siinaa dollar bishii oo dhan telefoon waxna ma isticmaali karto shaqaalo kale inta duway saas waxa sheekada ahaatee ilaa hadda waxay maraysaa waxyaalo oo lagu noolaan karo oo dadka qaar kood caadi iskaga noolaan karaan tan ka weyn oo dhacday dhibaatada weyn oo dhacday waxa waaye gabadha ugu weyn gabadha waxa la dhahaa Zainab la dhahaa gabadha weyn Zainab waxay jirtaa 18 jir oo sii socotaa gabar kale ku xigto waxa la dhahaa Zahra gabar kale waa jirtaa waxa la dhahaa Gitia la dhahaa 13 jir waa taasne marka saddex gabdhood isku dhigtaan gabadha weel ninay saaxiib la noqotay gabadha 16 jirkan ninay saaxiib la noqotay tan yar waxba saaxiib lama noqonin laakiin se warqaday qortay ee dawladdu u qorayso ee borsadeeda guriga taale ee dhaxgelisay ee dhehayso anaga hadana laga soo gaarin meeshaanaytod waa ku dhimanayna hana laga soo gaaro dawladda u qortay laakiin wuxuu raajita borsada guriga taalo marka gabadhahan labadan gabdhood saaxiib maadaama noqdeen wax ogaamada sheekada hoos iska wateen iskoolka markay tagaan tan weyn xijaabka iska tuurtaa makeup iskoolka marsataa markay banaanka timaadana way isdabooshaan marka
waxay sameeyeen marka iskoolka waa laga wadahayay way caatooda gabadhii waxay isdhahayeen waxaa ku dhacday cudurka oo cunto la-aanta lagu nool yahay oo dadka qaarkood markay dhalinyarada yihiin ku dhaco marka iskoolka way ka yaabanayeen dhowr jeer ay u sheegtay bilbilameeb guriga ay ku qabtay u sheegtay wax kastay u sheegtay laakiin wax dabagalay ma jiro. waxaa dhacay marka hooyadeed iyo aabaheed way baxeen waxay aadeen Dubai ay aadeen ayaga iyo eedida guri loogu talagalay iyo walaalkeed wiil Axmed la dhahaayo oo wiil weyn ha joogo guriga loogu tagay marka gabdhihii oo baaray wuu fatashay markuu gabdhihii dabagalay uu ogaaday wuxuu arkay gabadha weyn inay saaxiib haysato gabadha yarna inay saaxiib haysato warqadna inay meeshaan u taalo oo tii kala saddexaadna ee dawladda u qorayso ee rabto reerka inay dacweyso marka waxaa la sameeyey wuu sugay gabdhihii waqaqashaada wuu celiyey wax barablaanka haystaan waa ka soo celiyey guriga ku hubsaday inay la joogo inta hooyo aaba ka soo noqonayaan markay hooyadiis aabiis soo noqdeen fartoo ka saaray sheekadii marka sheekada markuu farta ka saaray sheekada markuu u dhiibay marka waxay sameeyeen inay kaxeeyeen waxay ku sameeyeen lama yaqaano saddexdii gabdhood macal eedadii gaari in lagu qaaday baa waxaa laga tuuray meel jabal oo biyaa lagu dhex tuuray marka waxaa dhacday in oo kadibna ay soo noqdaan oo wiilka booliiska wiilka Axmed dhahay booliisku wacay wuxuu yiri gaarigayga baarkinka meesha soo yaalo baabaawr kala jugsiiyay kabacdina waxaa gaaray maxaa la dhahaa wuu report gareeyay gaarigiisa afka soo jabay wuu report gareeyay kadibna waxay sameeyeen asiga Axmedkii baa wuxuu wacay booliiska wuxuu yiri walaalahay waa la leeyahay missing person aan sheegaynaa meesha anaga maqan aan report gareynayna waxaa naga maqan walaalahay furahay qaateen waxay sameeyeen gabadha naga weyn qaadatay furaha waxay tiri aabe furaha isi baabuurka wuxuu ii saaranahay dhar aan ka soo degsanayna way degtay gabadhii mana soo laabanin booliiskii la imaaday wixii la raadiyay waxaa la arkay gaarigii inuu ku jiro meel biyo ah waa la soo saaray saddexdii qofood gabdhood iyo macal eedadii wada saaran oo u eg dad hore u dhintoona meesha la fadhiisiyey bay u ekaan dad dagaalamay ama biyo galay oo biyahooda maxaa la dhahaa isku daya inay ka dhaqaaqayaan ma noqon dad meesha ka fadhiya ekaayeen marka biyaha uu ku dhacayna wuxuu ku jiray ilaa albaabka hore camal uu afka kaga jiray baabuurka dhan maba ku wada jirinba haaf camal uu ku jiray marka waxaa la dhahay waxa marka kow la keenay oo pictureka laga wada qaaday video laga duuba la fiiriyey si kasta la yeelay meesha waxaa ugu cadaatay dadkan meesha ku jiraan inay nasaan iyagoo nool ee meesha ku dhicin waxaa lasoo saaray dhalooyin meesha jid ku yaala lasoo qaaday dhalooyinkaa la fiiriyey oo jajabay gaariga gadaashiis dambaa la fiiriyey gaariga gadaashiis dambe wuxuu ekaa gaarigan in gaari kale lagu soo riixay oo meesha loogu soo wixiyey marka waxaa lasoo ogaaday wiilkii gaariga uu sheeganayay juga ay gaarta dhahay jug wax ka gaarta ma lehe ayagaaba ku riixay oo raali iskaga ahaa gaarigii saas ugu riixeen marka dhalooyinka marka lasoo qaado waa isku ekaadeen dadkan laakiin waxay taagan yihiin annaga maana arkin si warka loogu caddeeyay marka waxaa la sameeyey gaarigooda baa waxaa loogu qariyey fiilaa loogu qariyey hooyada iyo odagoo isa saaran oo sheekeysanayaan oo waxaa laga dhageystay dhahayaan haddii ay 100 jeer soo noqdaan xataa 100kaas jeer waa dila xataa armay isku qaawajinayaan darada subinayaan 100 jeer haddii nolosha soo noqdaan way ku celinayaan meesha ka imaadeen waan dilaalay markastaba marka saas iyagoo ku maadaama markaas warkooda la maqlay gaarshira la geeray waa la xiray hooyadii aabihii iyo maxaa la dhahaa wiilka walaalka ahaa saddexdooda waa la xiray waxaana lagu xiray ilaa ay ka dhintaan ay ku jiraan gaarshirada gadaal abiilka qaateen abiilka markay ka qaateen kadibna waxaa loo soo ogolaaday in oo maxaa la dhahaa odaga kasoo bixi doono markuu garo 80 hooyadana ay kasoo bixi doonto 64 sano idoo jirto wiilka yaraan inuu kaga soo bixi doono 42 sano soo jiro inuu kasoo bixi doono ilmihii kale soo haray saddexda maadaama dhinteen ee 7 ahaayeen afarta kale ilmaha soo hareen waxaa la sameeyey maya saddexna waa la xiray saddexna waa dhinteen wiilkana waa la xiray afar soo maaha saddexda u yeeray gurigana waxaa loo dhiibay dawladda oo Kanadiyaanka inay ayaga hayaan because waxa meel kale la geenayo malaha kuwaana markay soo dayaa la yiri waxa loo celinayaa Afghanistan loo celinayaa marka xaaladooda saasay maraysaa saddexdii caruurna ilaahay waxaan ugu baryaynaa inay meesha joogaan oo ku amaano yeelo marka saaxiibayaal qisadeena maanta intaas waaye iga raali noqda codka waa kusoo korduubay codka kale waa iga halaabay waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu noo wada naxariisto
إذكي أنجا والدكين والدكين أنت مسلمين برب سبحانه وتعالى الرحمة ديسة جنة فردوس على هنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.